كأفراد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وحليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد أدونك قفك رجل دومر بدكو دونها النقض لا يتكلم بالكلمة أراهبوكوها الليا إريبوكوها الليا أفكيس وحباك الصباحية ما يتبين فيها أوسن هبصنين ما حق با ما باطل با دم بما لقاقا قريا مسا أجر سحميا مسا وخطأ ما يتبين فيها أو ما كلا عضو موسى عضيسنين كلمة مسحبها مسا وخطأ يزل بها في النار. مركاسا وحو كلمة سي وحي قارسينيسا يعني وحو كسم بريحانيا قفك مركو ميل دوبا او لوكتا سارو او اي لوكتو دوبادو لا اوردو ايا لا يراهدا زل الرجل قفك واو وعدي اما waa leexday ama waa simbirixday ama sibiq ba la tagtay yazillu biha waxay gaarsiinaysaa ama ay u leexinaysaa ama uu ku simbirixanaya biha bisababiha kalimada sababteeda fi النار na'udhu billah ila inta ab'ada ma bayna al-mashriq wal-maghrib. naarta waxay ku tuuraysaa wax ka fog ama masaafa ahaan marka la eegayo qorraxdu meeshay ka soo baxdo iyo meesha ay u dhacdo waliba wax ka fog lama dhihin qorrax ka soo bax iyo qorrax u dhac inta u dhaxaysa wax la eg ayay naarta ku tuuraysaa lama dhihin waliba wax ka sii fog ayaa leeyahay. arayta ma aragta ayuha al-abd al-faqir arabkeena ma aragteen arabkeenu suus u kontroleyn ma aragteen arabkeena sidan oo samaanta wuxuu doono oogu hadlaya ma aragteen meeqa kelimo ayaa afkaaga ka soo baxda ta'anni muuji kelimada intaada ku hadlin waa inaad dhahdo ma sax baa mise waa khata ma xaq baa mise waa baatil xataa hadday kuu caddaato inay sax tahay waa inaad dhahdo meeshan ma ku habboon tahay wakhtigan ma ku habboon tahay mafsadada ka dhalanaysa iyo maslaxada ka dhalanaysa yaa weyn baahi ma loo qabaa hadda inaan kelimadan ku dhawaaqo low haddaan saa u xisaabtami lahayn dhacdhaceenna yaraan lahaa culummadu waxay dhahaan man kahura kalaamuhu qofka hadalkiisu uu bato kahura saqatuhu dhacdhiciisa iyo duulduulkiisa ayaa bata qofka dhacdhiciisa iyo duulduulkiisu batana ذنوبتيسا أيا بدت نعوذ بالله. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إذن عرب كينا إلى لنه ومهيم عرب كينا إلى لنه